waxaan ku soo khatimay idinku dheeraan maayo kelmadda xadiidkii Bukhari Abu Shumasa xadiidkaasaan ku soo khatimaya wuxuu ka hadlayay markii Amr ibn Aas ay geerida ku timid Amr ibn Aas طبعا qofka markuu xaraarigu u gaaro heer leeyahay lugaha la isugu toosiyo qibladana ha lagu beega marka la leeyahay waxa badan xigta iyo xigaal cid haraysa inaanay jirin in lagu dul xoomanayo afarta gees la isaga imanayo meel walba la soo wada fariistay dadka oo gees fadhiya buu ooyin markii bilaabay inuu iska ooyo xadiid Bukhari wiilkiisa ay sahin waayo wuxuu ya abati malak maxaa ku haysta aba maxaa la ooyeysa markaas wuxuu u tiriyay khayraadkiisa wuxuu yiri waxa ahayd ninka nabiga garabkiisa taagan markii qaswada dagaalka la galay duulaanka baad joogtay dooyada baad joogtay khayrka baad joogtay waxiga markuu soo dagaad joogtay nabiga la fariisan jirtay nabiga wuxuu u tiriyay khayraadkiisa waa qof CV qurux badan leh markii inta loo tiriyay wuxuu rabaa marka ujeedadiisa waxay tahay inuu dajiyo aabba uu yiraahdo aabba waxa ka walwashid ma jiraane khayr baa ka horeey iska bishaaraysa amus isna intuu hal mar milcay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan idin faa'iideeyo in noloshaydu ay soo martay saddex xeer buu waqti baa jiray buu yiri soo maray nabi maxamed uu ahaa qofkan adduunyada ugu nacbanahay buu yiri ma arki karin ma maqli karin la iima sheegi karin wuxuu yiri waxaan goobayay inaan maalin on jaanis ku helo kadibna aan saan doono ka yeelo buu yiri intaan waxaan ku samayn karin inaan ku sameeyo inaan dilo wuxuu marxaladii iyada ahay tagtay ida dhahaba al-himaru bi amr فلا رجعت ولا رجع الحمار تكتب مرحلة إذا تكتب ولا إلى يروح قدر بي المرحلة إياه وحان هو بيري كره أما نعيب كالنبي أن نقبه هذا كل من له من أهل النار إن مقف النبي محمد نعمية جنة كهريسة وان هو بيري إن أهل النار وقت هذا صار كل من له كدب إلى هاي افتين كإيمان قلبي كصوت ربي مر بوحى لا تسبيل إلى الإسلام أنا أرضي صحضوبه النبي هر فريس يا رسول الله أريد أن أبايعك طبعا كلمة مبايعة أما allegiance وكلمة الاستعمال يقفكم مركو ربع الإسلام كأصقل رسول الله وحن ربع الإسلام كأصقل النبي صلى الله عليه وسلم قعنتي سي بركة يسند بوسو تاجل طبعا إنه مركها مصافحة وقع عن قاضي عمر مركي ونبي سا أوسو تاجت بوتيسي دي بقولها لابت مركها شو النبي يري النبي قال له صلى الله عليه وسلم عمرو هذا إيمت oo yiri bay'an kula galaya waan islaamaya markaan gacanta ku soo tagtimad gadaal goranaysa markaas nabi waxba ii weeliya inta kaliya ma ila ninka wuxuu og yahay waxa uu horeeyay og yahay noloshiisa wuxuu yiri bay'ada waxa ii weeliya buu yiri waxaan rabaa dunuubtaydii tagtay in la dhaafo halka marka wuxuu si dadban oo seelan u tilmaamaya dambigii ahaa kurhiga nabiga sallallahu alayhi wasallam qalbigiisa ka buux waxaan rabaa in la tirtiro markaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ya amr miyaadan ogeyn buu islaamku wixii ka horeeyay inuu burburiyo miyaadan ogeyn hijradu wixii ka horeeyay inay tirtirto miyaadan ogeyn xajku wixii ka horeeyay inuu tirtiro qofkii hadda soo xaji xalay dhalay inuu noqonayo hadduu soo islaamin xalay dhalay noqonayo markuu hijrada xalay dhalay noqonayo miyaadan ogeyn inta markuu yiri kadib buu wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam baadi baan la galay wixii laga bilaabo waqtiga nabiga wuxuu yiri dadka qofka aan ugu jeclahay buu yiri ardada ilaahay heer waxaan gaaray buu maanta hadaad i weydiiso nabi maxamed soo eka inaan ku sifayn karin buu yaani xishood aan ka xishoonayo iyo jacaylka aan u qaba darteed xitaa nabiga kama inda buuxsan jirin buu ma sifayn karo nabi maxamed soo u muuqday ma sheegi karo buu hatta hoos baan eegi jiray buu jacaylka nabiga aan u qabo sallallahu alayhi wasallam waxaan hubaa marxalada hadda saan ku dhiman lahaana in ahlu janna noqon lahaa ilaa qalbigiisa maxaa ku jira waxa ku jira al-islam waxa ku jira hubbu nabiy sallallahu alayhi wasallam waxa ku jira nuur al-islam laba marxalad buu maraya wuxuu yiri marxalad kale ka dambeysay buu yiri walayna ashyaa wala nadri fiha wuxuu tilmaamay markuu baarasaabka noqday danjiran noqday maamul loo dhiibay qofku markuu kursi ku fariisto kana iska celi kana xabsi dhig kana la dagaalan inta masjid u samee intana xabsi u samee inta lacag ku sii intana xir waad ogtahay qofka marka uu kursi ku fariisto rag bay ismaagayaan mucaarad buu yeelanaya wuxuu iska dhicin karo iska dhicinaya wadaadnimadiisa iyo khayrkiisa waa baab kale laakiin raganimo muujinaya wixii marxalada iyada waa marxalad waxaan ku magacaabi karaa biir isku dhafan ah oo marxalada ilaahay uu leeyahay khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a waxay isku dheeheen oo isku dhafeen
عمل وناكسن عمل حن وحير مرحلة دا سدحات ما أجي بير هالكن كنت بين دور لكن مد وان هذا بقول كي بقول نعيب كالنبي عن عبنا إن ناركم متيسني من نوان هذا بقول كي بقول جعل كالنبي عن جعل هنا جنكم متيسني لكن تسدحات ما أجي بير مالك كنت بين دوت مرحلة سدحات أنت أنا تعليق بنا لك يسين لما يستري وحير مرك هدان أنت كل وان سعداي نيوي ودك سويقان كل هدان أنت بير قلبيو جاية halkii laygu xabaali lahaa kadib wixii markaad meesha ay dhigtaan oo ciida idan igu naxariisan oo intaad igu rogi kartaan igu rogtaan biiri waxaan idin ka codsanayaa biiri inaad an tamkuthu inda qabri qadara ma tunharu juzurun fayuqassamu lahmuha waxaan rabaa biiri inta marka lay dhigo xabaasha lay dhigo nagaada intii neef geela laga gowracayo hilibkiisa laga qaybino meesha tabcan ma jirin in la dhaho 20 minutes iyo 1 hour iyo waxa soo dhan ma jirin laakiin waxa lagu qiyaasan jiray yani inta neefka marka laga gowracayo kadib hilibkiisa la qaybinay muddo go'an baa wuxuu yiri waxaan rabaa biir inaan idin weheshado marka su'aalaha ugu bilaabanayaan wuxuu kaloo ka dardaarmo yiri fala tatba'ni na'iha inta marka qabriga liisidana haweenay iyadu barooranaysan yaani iraacin dabna yaan laga daba qaadin biir dabna yaan laga daba qaadan dardaaranka buu ka tagay isagoo og inuu meeshan uu ka tagi doono adduunyadii halkaana waa tii sida marka dardaaranka ay u fuliyeen waxaan rabaa marka saddexda marxaladood waxaan ka qaadanaynaa xadiidkaas kow qofka muuminka inuu noqdo qof noloshiisa la socdo inaa isweydiiso dhahdid wadankan baa timid intaadan iimaanin maxaad ahayd waxaan imid anoo safiina salaad ka aqaan anoo shanta salaadood tukanayo anoo juzcamahayga tuurta anoo qaraabada xiriiriya anoo wanaaga qabanayo okay 10 sano kadib markaad meesha ku nagaato baasaboorka qaadatay maxaa dhacay awlaadii baa badatay kadibna sadaqadii way yaraatay kadibna quraanka uu istirtiray kadibna jamaacadii baan ka luga jiiday qofku inuu isweydiiyo maxaa wuxuu og yahay boqol initial stage of his life in uu xaalad xun ku jiray way u muuqataa marxaladii labaad way u muuqataa waxa uu ku sugnaa wa khayr marxaladii saddexaad oo tiin Amr ibn Aas waa tan inagoo dhanba aan ku suganna maxaa waxaana soo maray maalmo ilaahay aan raadi gelinay iyo maalmaan ilaahay ka careysiinay waxaana soo maray maalmo ilaahay uu inagu qoray buuga wanaagsan iyo maalmo buuga xun aan ku qoranna maalmo aanu buuxinay sijiinka iyo maalmo aan ciliyiinka aanu joog maalmo waxaana soo maray an alwasiqa alladina taqaw anhan wasiqa alladina kafaru ilaahay baan ka mangalay laakiin dad liita inaan nahay wayna soo martay maraaxil kala duwan baan soo maray marxalada iyada ah waa marxalada walwalka iyo walbaharka ka muujiyay وليه كل وانسي سعداي منو اوغي ماشي ku dambayn doonto isagoo jeclaan lahaa marxaladii labaad ee xalay dhalay uu ahaa nabiga uu ku bishaareeyay inuu san dambi wax dambi u qornaan inuu dhinto laakiin way dhici weyday sooma marxaladan saddexaad waa marxalada qof walba inuu walwal muujiyo ay tahay maxay nasiibka ah inuu qofku intuu hadda islaam hore ka dhinto dadka dhan ma wada laha laakiin inagoo dhanba ilaahay saan nooma abuurin إله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات مركو إلهي تلمامه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سدح بالوقيبي من نوى ظالم لنفسه من نوى يسوق لحد حيستي من نوى سابق بالخيرات ومرحلة دي وصاء إسلام ظالم النفس ومرحلة النبي ونعبنا مقتصد ومرحلة اللي لا ندري وحن سمينا بوق ما مرحلة إنك نكون صفيسن تاوي تانوبها إن كبرارون